shacabka magaalada Laascaanood ayaa cabasho ka muujiyay cashuuraha wasaaradda maaliyaddu ka qaado guryaha waxaana saaka gudaha magaalada Laascaanood lagu arkayay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo albaabada ka saaraya meheradaha ganacsiga qaar qafiro ku xidhaya waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka magaalada Laascaanood oo ka deeriya cashuurahani iyagoo sheegay in cashuurtan waxba laga soo celin waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan shalay wuxuu lahaa in kaliya Faysacal Waraabe cashuurteeda nugula joogan saakan waxaad arkaysaa albaabadayadii in la baxayo loo saarayo Faysacal Waraabe qaybkiisa ma siyaasiga reer Laascaanood baa khaldan cashuurtiisa xal loogu qabanayn meherada ganacsiga albaabada la isku dhuftay waxa loo xidhayna waxay ahayd cashuurta la xidhay dadka reer Laascaanood laga xidhay qofkii way bixi jireen lacagta markii arkeen lacagta cashuurta aan reer Laascaanood laga loogu qabanayn loo qaadayo bay dadka reer Laascaanood cashuurta hakiyeen ka bacdi markii cashuurta hakiyeen waxa dhacday in albaabada la isku dhuftay ganacsigu wasaaradda maaliyadda Laascaanood waxa ka tagday dawladda Soomaaliya ka bacdi waxa dayactirtay dawladda Puntland ee hore joogtay 12 sano Soomaaliland joogtay ganjeel ma gelin hadeerna waxa moodaa lacagtii magaalada inay guranayso loo dhaadhicinayo Hargeysa iyo Burco cashuurta waa in degmadan wax loogu qabtaa haddaan degmadan wax loogu qabanayn waa in dadka laga daaya ka muuqda magaalada waliba dhib aad moodo inay soo wajahayso ganacsatada Laascaanood dalka waxa ka dhacay bando coronavirus dhaqaale xumo dadku waxay u baahan yihiin shacabka in loo tuuro oo la dhaqaaleeyo waxaad moodaa in qaab cashuur qaada oo isbarbaryaaca hadda halka waxa soo maray maato albaabada laga guranayo gaari oo la leeyahay waa wasaaradda maaliyadda anagu saan u arki jiray qofka guriga leh bay cashuur ku leedahay inay raadsatayna xaq u leedahay laakiin qofka hantidiisa inay ganacsi kirada ugu jira inay dhibto oo ka gurato albaabada maaha dawladda hoose iyo maaliyadda iyo cid kastoo cashuur qaadana waxaanu leenahay dadka shacabka waa in loo tuuro oo loo naxariisto kulana ba jiraanba marxalad maanta cashuur lagaba qaado magacaygu waa Axmed Kaysa Diiriye dhalinyarada gobolka Sool saaka waxaan ka hadlaynaa aanu noo soo baxnay hooyooyinka halka lagu dhibayo cashuurdii dadkani ma dadku cashuurta way bixinayaan laakiin cashuurta waa inay muuqataa dadka wax loogu qabtaa waxay magaalada ka wadaan iyo ninka koronta la dhaho iyo wasaaradda maaliyadda waxbaanu ka qabanaynaa waanu iska celinaynaa dadku cashuurdiid ma laakiin cashuurta waa in dadka wax loogu qabtaa magaaladan iyo dadkan la wareerinayo leeyahay cashuurta laga qaadayo xaq darrada wax allaala wax loogu qabanayaa jirin wax allaala wax loogu qabtaa ma jirto albaabada lagala baxaa maalin walba kacdoon shacab wax allaala wax loogu qabtaana ma jirto waa iska baad foodo wax allaala wixii laga qaadana oo xoog lagaga qaadana waxaa loo diraa iyo Hargeysa loo diraa anoo magacayga Maxamed Cali magaalada Laascaanood waxa ka jirta kibir iyo adeed wado maaliyadda waa artaan magaaladii ganacsiga wada xidhay dukaamada xidhan yahay cid wax lagu qabanaya ma jirto lacagta Laascaanood laga qaado bangiga loo aruuriyo maalin kasta wax loo qaado Hargeysa loo qaadaa iyo Burco gobolka wax lagu qabto waxaan leenahay haddaan shacabka oo iska celinaa maaliyadda iyo dowladda hoose keesa kale maamulaha cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Cali Salaad oo sheegay in cashuurtani ku waajibtay hantiilayaasha guryaha cidii diidana albaabada lagala bixi doono ana weydiin cashuur baan ka duwayna cashuurtu waa mid waddanku ku hormaro waa mid waddanku ku hormaro waxa waddanka magaalada isbedelka laga sameeyo dhismo iyo shaqo abuur iyo bilic iyo magaalada facility dowladda ay ku shaqeyso weey waxaan mahad u celinayaa marka dawladda reer Laascaanood oo aad u sharafta badan oo cashuur bixiyayaasha oo mar walba cashuurta iyagoo aan hadal gelin bixiya midka cashuur diidka ee lagu adkeeyay cashuurta lagu adkeeya annaga albaab kala soo baxna laba bilood daba socono baanu waxaanu sameynaa albaab kala soo baxna qafil baanu ku xidhnaa markii qafilay naga jabiyeen baan waxaanu sameynaa in albaab kala soo baxno سادتي وحوي مركا أنا الباب كذا صبحنا عشورتي أنا ويسكب حيا عشورتي أنا واحد الشغل إلى استعماله أما عمدتي سينا أما المشاريع كبرنا معها وين نورنا وين بقرايس سي أنا أمرنا إلى الجنوي مركا دتك كان جلسة تدا يجعل لقوا مال عشورة وحلقوا لي
kiraalaha wareen tagiski cashuurta dhowaan ayay ahayd markii siyaasi Faysal Cali Waraabe uu sheegay in shacabka Laascaanood aysan bixin wax cashuur ah halka ay shacabka magaalada Laascaanood ay ku doodayaan in cashuurta laga qaado aan waxba lagaga soo celin oo baahiyaha aasaasiga ay dayacan yihiin cashuurta ban aysan bixin doonin waa Farxaan Maxamed Caydiid